Assalamu alaikum Prophetess. Kusoo dhawaada podcast-geena Prophet Sport with Fatima. Waxaa mar walba idin soo jeedin doonta gabadhiina ama walaashiina ama saaxiibtiinaba Faadimo Liibaan Axmed. Isku soo noqod xiiso leh iyo mowduuc asagana aad iyo aad u saameyn leh. Maanta waxaan rabnaa inaan isweydiino su'aal aad iyo aad u muhiim ah. Su'aashaas oo ah ma jirtaa camal qarsoon amaba camal sir ah anaga iyo Eebbe subxaanahu wa tacaala kaliya noo dhaxeeya. Run ahaantii markii aan maqlay nashiidada caanka ah oo uu qaaday ninka lagu magacaabo Bashaar al-Cafaasi, nashiidadaas oo ah hal laka sirrun cinda Allah baynaka anta wa bayna Allah, hal laka sadaqatun takhfa laa yaclamuha illa Allah, qisasun laa tukshafu illa bikitaabika xiina tara Allah, ma axraaka biha an yakbura qadaruka cinda Allah. oo macnaheedu ay tahay ma jirtaa sir adiga iyo Eebbe idin dhaxaysa labadiina maahine qof kale uusan ogeyn. Ma jirtaa sadaqa qarsoon taasoo uusan ogeyn Eebbe mooye. Sheekooyin lagu muujiyay kitaabkaaga markaad Eebbe la kulanto. Maxaa kaaga wanaagsan amaba kaaga nasiib badan inuu Eebbe subxaanahu wa tacaala qiimahaaga uu Eebbe agtiisa ka weynaado. Markaan nashiidada maqlay especially qaybta oo dhahayo hal laka sirrun cinda Allah, su'aashaas ay qaybtaas ay u istaagtay. Waxaa isweydiiyay Faadimo, ma jirtaa sir adiga Eebbe subxaanahu wa tacaala idinka dhaxayso labadiina maahine qof kale uusan ogeyn? Jawaabtii soo baxdeen waxay ahayd maya. Wax mucayan markaas aan sameyn jiray amaba aan laazimi jiray oo aniga u haystay in sir aniga Eebbe oo naga dhaxaysa ay tahay maysan jirin. sidaas daraadeed maanta waxaan rabaa in aan isla fahamno mowduucan acmaasha sirta ah iyo inaan sameysano acmaal sir ah oo aniga Eebbe noo dhaxayso. isla markaasna maanta waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo sheekooyin ku saabsan acmaashaasi dad sameey jireen si markaas ayna u noqoto aan u fahamno mowduucan, isla markaasna afkaar u qaadano anaga maxaa la nolosheena ku soo darno oo ay inoo noqoto acmaal sir ah. So let's go. Kooda hore waxaan ku bilaabeynaa inaan qeexno cibaadada qarsoon ama acmaasha sirta ah. Cibaadada qarsoon waxaa lagu qeexaa waa cibaado qofkii laazima ay qalbiga u nadiifinayso isla markaana ku barbaarinayso camalka wanaagsan. Waa cibaado ama camal si qarsoon aad u sameynayso cidna aysan kula ogeyn Eebbe mooyaane. waxaa sameyn kara oo kaliya cibaadooyinkan dadka saalixiinta ah oo Eebbe subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay amaba ayaga Eebbe ay jecel yihiin. rasuulkeena calayhi afdalu salaatu wasalaam wuxuu dhahay man istataaca minkum an yakuuna lahu qab'un min camalin saalixin falyafcal. qofkii awooda inuu sameysto camal qarsoon ama camal sir ah ha sameeyo. tanna waxay noo cadeynaysaa in nabigeena calayhi afdalu salaatu wasalaam inuu noogu boorinayo inaan sameysano acmaal qarsoon. culimadii waagii hore waxay dhihi jireen qari xasanaadkaaga sida u qarisid dunuubtaada. marka tan waxay noo cadeynaysaa inay muhiim tahay inaan sameysano camal qarsoon. haddii aan ku bilaabo qaybta saddexaad, sheekada ugu horeyso waxaa ka sheekeynaya sheekh lagu magacaabo Maxamed Raatib An-Naabulsi. waa sheekh ilaa hadda nool oo Suuriyaan ah. sheekhan wuxuu dhahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa Suhayl ibn Camar asaga iyo xaaskiisa safar soo wada aadeen. ayagoo jidka soo jira ayaa waxaa jidka ugu soo baxeen tuugo. waxayna ka dhaceen wixii ay wateen oo ahaay badeeco, lacag iyo cuno. tuugadii waxay bilaabeen inay cunaan wixii cuno ay ka dhaceen Suhayl iyo xaaskiisa markii laga reebo taliyaha tuuga ah. Suhayl wuxuu la yaabay sababta uu taliyaha ciidankiisa wax uunan la cuneynin. uu tagay wuxuu weydiiyay sababta uusan asxaabtiisa wax la cuneynin. taliyihii ayaa wuxuu dhahay waa soomanahay. Suhayl ayaa wuxuu dhahay oo ma soomeysaa kadibna dadka miyaa dhacaysaa. taliyihii wuxuu dhahay waa albaab aniga Eebbe subxaanahu wa tacaala noo dhaxeeyo, laga yaabo maalin maalmaha ka mid ah inaan jannada ugu galo. albaabka meeshan waxaa laga wadaa camal qarsoon. 2 sano kadib Suhayl asigoo Kacbada jooga oo xajinaya ayuu wuxuu la kulmay taliyihii tuugi
isagoo xajinaya oo maxalla waxyaalihii uu sameeyay dhan uu ka tooba keenay. dan Suhayl wuxuu dhahay waxaad samaysataa albaab adiga Eebba subxaanahu wa tacaala idin dhexeeya laga yaabo maalin maalmaha ka mid ah inaad ka gashid. dulucda qisadan waxaa waaye haddii ay jirto dembi ama wax adiga iska dhaafi laadahay, isku day inaad laasimtid ama baa kusoo dartid camal kaloo wanaagsan. laga yaabo camalkaas oo xumaanta aad sameynaysid inaad maalmaha ka mid ah iska dhaaftid camalkan wanaagsan inuu albaabo kuu furo ee noqoto camalkaas aad sameysid mid markaas jannada u gashid. sheekada labaad haddii aan gudbo, qof ayaa wuxuu leeyahay waxaa jiri jirtay haweeney oo seegeeda habeen walba uu soo daaho, hooyadiisna zaid ayay ugu walwali jirtay. marka naagtan waxay sameysay kabaha ninkeeda intay soo qaaday ayay waxay dhigi jirtay irida qolkeeda hortiisa si markaas hooyada ugu maleyso inuu wiilkeeda soo hooyday, kadibna iyadoo niyadeeda degan tahay ayay seexan jirtay. camalkaas waxaa isla ogaa oo kaliya haweeneyda iyo Eebba subxaanahu wa tacaala. qof kale ayaa wuxuu leeyahay waxaa jiri jiray agoomantaaseti salaada jumco kadib, salaad walbo jumco kadib qof ayaa cuno usoo dhigi jiray gurigooda hortiisa. dadka markay weydiin jireen iyo idin yahay qofkaasi, waxay dhihi jireen 15 sano ayuu sidaan sameynaya ilaa haddana ma naqaano ciduu yahay. qof kale ayaa wuxuu leeyahay dariskeena Eebbaha u naxariistay salaad walba kadib caruurta masjidka joogta intuu isku soo aruuriyo ayuu wuxuu u qaybin jiray macmacaan ilaa ay caruurta mar walba ay salaada usoo tartamaan ay salaada ay jeclaadaan. qof kale ayaa wuxuu leeyahay waxaan leeyahay saaxiib, waxaan ka geeriyootay dadkii u shaqayn jireen 3 ka mid ah ilaa ay hadda mushaaraadkooda si buuxda ayuu wuxuu ugu diraa eheladooda. qof ayaa wuxuu leeyahay waxaa jiri jirtay haweeney bil walba waxay ku sadaqaysan jirtay gabdhihii gurigeeda ka shaqayn jireen, mushaarkooda saxsan ayay bil walba u diri jirtay ayagoo magaalooyinkooda joogaan. qof kale ayaa wuxuu leeyahay waxaa jiri jirtay haweeney mar walba ay xoolaheeda soo maasho waxay caano ku shubi jirtay dhalooyin yaryar, kadibna waxay dhigi jirtay gurigeeda hortiisa si markaas dadka guriga agtiisa marayaan oo masaakiinta ah ay u qaataan. qof kale wuxuu leeyahay ayeeyaday galab walba salaada casir kadib waxay biyo u shubi jirtay bisadaha, kadibna weelalkooda haday ka wasaqoobaan xitaa way u nadiifin jirtay. waxaa la sheegaa in Cabdullah ibn Mubaarak mar walba uu jihaadka gali jiray oo wajigiisa dabooli jiray si markaas ay dadka aysan u garanin qofkan oo dagaalka ku jiro. waxaa la sheegaa Nabi Daawud calayhi afdal salaatu wassalaam uu maalin walba soomi jiray ilaa 40 sano, qoyskiisana maysan ogeyn in uu soomo. subaxdii cunada loo diyaariyo wuu qaataa, dadka masaakiinta ayuu ku sadaqaystaa, habeenkiina wuu la casheeyaa ayagoo u maleeya inuu casheenayo laakiin asaga ay u tahay afur. waxaa kaloo la sheegaa nin lagu magacaabo Ayuub al-Asqani habeen walba wuxuu u kici jiray salaada qiyaamul leelka asagoo cidna aysan ogeyn ama cidna aysan dareemi jirin. markii la gaaro salaada subax wuu soo kici jiray asagoo ka dhigaya nin hadda soo kacay oo kale. nin lagu magacaabo Naciim ibn Xamdaan wuxuu dhahay ninka lagu magacaabo Maalik wuxuu ahaa nin sha'nigiisu u weynaa, haddana wax salaad ama soom badan kuma ogeyn, laakiin wuxuu lahaa camal sir ah ama camal qarsoon asaga iyo Eebba subxaanahu wa tacaala ay u dhaxayso. sheekooyinkan wadan waxaan ka barneynaa waxyaabo badan. tan koowaad aan ka barneyno waxa waaye joogteen ama ikhlaas. dadkaas dhamaantood waxaan ka barneynaa in acmaasha ay qabanayaan ay joogteen jireen. tan labaad aan ka barneyno sheekooyinkan waxa waaye kala duwanaanta camalka. dhamaantood nin walba wuxuu sameynayay waxa uu fudud oo asaga sameyn kara. tan saddexaad aan sheekooyinkan ka barneyno waxa waaye awoodda qofka wax walba uu sameynayay waxay ahayd sheekooyinkan ayaan ka wadaa wax markaas asaga uu awoodo oo uu ka soo bixi kara. haddii aan gudbo qaybta afaraad oo qaybta ugu muhiimsan oo ah sideen ku sameysan karnaa camal qarsoon aniga Eebba noo dhaxeeya subxaanahu wa tacaala.
annagoo ka tusaale qaadanayno sheekooyinka hadda soo sheegay isku dayna inaan sameysano camal qarsoon oo sir ah. camalkaasna anaga eeba subxaanahu wa tacaala isla ogna laga yaabo camalkaas inuu ilaahay noogu naxariisto, inuu ilaahay culeysnahay noogu qaado, inuu ilaahay albaabada farajka noogu furo, albaabada risqiga noogu furo. marka waxaa idin siinaa tusaalayaal acmaal aad samayn kartaan wixii idinka anfaca qaata. sheekooyinka idin soo sheegan wixii idinka anfaco isleediin waa samayn karnaa idin ka qaata. iyo waxaa kaloo sameysaan wixii markaas noloshiin ku jiro idinka awoodaan sameyntiisa ina camalka qaadataan, camalkaasna u sameeysan ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa. inta u gudub galin maxaa la tusaalooyinkan waxaa laga yaabaa inay isweydiisaan su'aal ah waxaa leedahay Faaduma dooran camal qarsoon adiga ee subxaanahu wa tacaala asla ogtiin. at the same time sheekooyinkan dhan dadka sameeya acmaashood waa ognahay camal qarsoon maaha, sax waa ku raacsanahay dadka markay sameynayaan camalka ayagu u qorsanay. teeda kale waxaa laga yaabaa camalka adiga inaa ku dadaaleysid inaa akhrisid laakiin dadka laga yaabo inay ogaadaan. muhiimada waxaa waaye inaad camalkaas laazimtid, inaa isku dayid inaa asmaada asiyukan inaa akhrisid iyo maxaa la sababta camalkaas u sameynaysid iyo ajirka subxaanahu wa tacaala ilaahay iyo camalkaas ajirkiisa inaa ilaahay maxaa la كعساتي يعني إلها درتيس أسميسيد. هدية دتك وقاعد عمل كأسمينيسيد أما قف كاس مركز عمل كاس مرة بأسميسيد وقاعد إن هذا عمل كاس أسمينيسيد لب مله، لكن مهمة وحاول إن لازم تدي إنها تأجرك إله سبحانه وتعالى أويديسيد. سو مركز الشعريات هذا وجود قاله أنا وحوه هريه اسكت إنا أكلك تتعمل خرصان صدق هذا مركا وحا اسكت إذا هذه صورة كله تهي inaad maxaa la tusaalahan waxbarasho ka bixisid arday wax bartaan haday ahaato arday dugsi quraan bartaan inaad ka bixisid kharashaadka lacagta dugsigaasiti. hadii arday waxbarasho iskool rabaan aysan awoodin waxbarashada iskoolkaas isku day lacagta iskoolka inaad ka bixisid, ama hadii lacagta iskoolka awoodaan isku day inaad ka bixisid kharashaadka oo gaari raaca camal bil walba inaad u dirtid yani dad u baahan waxbarashada inaad ka caawisid وإلى هدتي أو سميستي. أنا هدي كلا أنا أسكت ديت سوح إلى كين وحير الناس تقاسد وحوير أو العق أسد تقيسن كرتيت سوح إلى كين الناس تقاسدت. أنا أسكت ديت أنا عمل كسر لازم تت تنلوات تصالحان هدي قف ومعني هي وأرضي وحبرهم وقتي وحبر الشذا ما هني إنه وقت كلا وقدر وعلم ديريا وبرع أرضي ذا سيتي وإله سبحانه وتعالى درتي سو عمل كاس وسمي صوابته وسمينا عمل كاسنا أسجي إله سبحانه وتعالى أي اسل أوجيهن. أنا تنسدحات تصالح سدحات أجنسين كروحة كميته إن سبيد إن هبينكي صلاة قيام الليل أو سوك عاد صلاة أدوكتت وإله سبحانه وتعالى أدوكتت أمس كلا صلاة الضحى إن أدوكتت معلم تعالى قصودرتت إن أدوكتت صلاة الضحى ده. تنصالح أفراد وحواي إنا مر والبو دتك أو دعيسد أنت جدك إسكمريسد دتك جدك مراء إسكادعيسد هذا الدكان أركتد إله سبحانه وتعالى دكان كان أم قناع سوان نور الله وصار له قف جرن جدك مراء داركتد إلهي يعافي قف مسكينة إلهي وحسي أنا أرضي حبرش السعوته إلهي وحبرش الفوضي يعني جدك هاس أنت إسكمريسد وح والبو أركتد دعاء يرس أما وين دعاء كستي أهات أو دعين كرتي كنا إسكاج دعيسيد وعمل بسيط جهدك قادنين تامك قادنين مر والبوضتك دعيسنا ملائكة الدعاء آمين يدهيسا وحنا الودها ولك بالمثل هذه نسيده كلام سو مرك ما أنت داقف ودعيس إنه إله عافمتي أذن نح الله سيده كلام أذن إله عافمتكسين وف حبرش أم حبرنا داره إله حبرش فضي هذه نحال ودها أذن حبرش داره كوفضي أمس كل حبرش داره برنيسيد الله كوفده سو اسكو داي مر والبو dadkana u duceysid. muhiimada ma aha qofkaas in istaqaanin ama bixiriir idinka ka dhaxeeya laakiin u duceysid amalkaas ducada aad sameynaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkiisa weydiisatid. tan shanaad oo idin ku soo talin lahaa waxa waaye inaad mar walba wax ka iibsatid dadka oo jidka wax ku gadaan ama dadka wax wareejiyaan hadii ahaato wiilasha looska wareejiya dadka dharka wareejiya dadka oo kiyaalayaasha iyo saacadaha wareejiya inaa wax ka iibsatid. tusaale hadaa usoo qaato kuwa looska iibiya hadii qofka cuniga yar ama looska wareejina hadaa looska gadatid
then kabacdeen camalkaas aad sameynaysa oo sameysay ilaahay dartiisa inuu qofka maanta oo dhan maadaama uu qorax ku wareegay si qoraxda uusan ugu wareegin oo xaafadiisa iyo dheer ku laabto asagoo maxaa lacag shaqaystay oo u fududeysay processkaas oo ilaahay dartiisa oo sameysay mar walba aragta ka iibsatid wiilasha saacadaha gadaan ama iskar ookiyaalaha gadaan ina wax u iibsatid hadii aadan u baahnayn ilaahay dartiisa inta u iibsatid dan qof kale aasiisid si markaas asana qofka dhiirigelin uu noqoto wareegaas oo qoraxda ku wareegay ee ka yaraato soo asagana ina isku dayid kuwaas camal ina mar caawisid camal qarsoon adiga eeba idin dhaxay idin noqoto labadiin bas asal ogtihiin qof diin uu leeyahay ina diinta ka gudid ama qof xabsi lacag daraadeed uu jiro ina lacagtaas ka bixisid yacni waxaa sameysaa wax adiga awoodid aad sameyn kartid kuwan had tusaalayaal leewaan wixii markaas adiga ka anfaca ka qaado wixii aad sameyn kartid inta dib ugu laabatid noloshaada aad ka dhigtay camal qarsoon hadii ahaato wax gurigaaga dhexdiisa ka sameynaysid waalidiinta iyo familka aad u sameynaysid hadii ahaato wax oo banaanka aad ka sameynaysid wixii markaas tabartaa maxaa la wax ka qaado ha idin ahaato camal adiga ee subhanahu wa ta'ala kaliya isla ogtihiin isku day camalkaas inaad joogtaysid marka maanta hadii mowduucan uu kusoo gaaray iyo taas micnaheedu waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaa khayrka kula jecel yahay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala kula rabo inaad sameysatid camal qarsoon oo labadiin oo kaliya idin dhaxeeya fadlan waxa ay la socotaa Instagram page-keena wixii mar walbo maalin walbo ka faa'iido xilqo walba soo dhigo meeshaas ila soo wadaaga maxaa la ra'yigiina iyo commentigiina aad iyo aad muhiim u yahay si ay ogaado mawaadiicda soo deeyo sida uu faa'iidaan saameynta idinku yeeshtaan iyo sida noloshiina saameyn u yeeshtaan si ay ogaado ani dhiirigelin ay tahay marka fadlan wax walbo ka faa'iidaan iyo maxaa la waxyaalo oo podcast-yana ku aragteen asleedihiin waxa laga bedelo ama iska lagu soo kordhiyo meeshaas ila soo wadaaga mahadsanidin maca salaama.